waxaa jirto dilka loo geysanayo shacabka bajaajleyda aysan cidna ka hadlin cidna loo ciqaabin diintu marka maxay ka qabtaa horta dadku in la dilo qayb iyaga ka qayb ayaga ka iyaga ka maxaa jira marka haday saxaafad tahay iyo haday rikaabley tahay iyo haday bajaajley tahay waxaa sabab u ah wadaadan wax qarin baan ahayo hadafkiisa aan la gamban bajaajleyda markii la yiraahdo kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu dhaqmo dad cudur ka qaadayaan haynaa rikaableyna waan haynaa marka xifdu nafsi iyo xifdu aqli iyo xifdu maal dhammaan waxa ka horeeya xifdu diin dadku marka inay ruuxdoodu u badbaado dhiigooduna oo xurmo yeesho waxa ka horeeya inay kitaabka Ilaahay u istaagaan inuu wax noqdo marka adigu markii aad kitaabka Ilaahay inuu heer galo oo lagu dhaqmo aadan u ololeynaynin dhiigaagu wuxuu noqonaa dhiig dameer maxaa yeelay xifdu nafsi waxa ka horeeya xifdu diin maanta markaad tiraahdo kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam wadankan lagu maamulo kuwa dan yaraho sintiyaar raacday diiday shacabka oo maalayacniga loo dilayo oo askarta ku xadgudbayso laga yaabo in ku shin ku dilo ama oo qaadid xabad loo muxuu noqonayaa dhiig dameer buu noqonayaa wuxuu ku noqonayaa qofka Soomaaliya bil aadina tahay bani aadamnimada nafaaleeda qof islaam ah tahay nafaaleeda dhiigeedu sidoo ku noqon karaa marka dhiig dameer wuxuu ku noqonayaa shayga adiga dhiigaaga waxa ilaaliyay 114 suuradood oo u qaybsanta Makki iyo Madani iyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sunnadiisii oo Quraanka sharaxday ayaa lagu ilaaliyay inaad ilaaliso oo aad doorto oo aad qayb ka noqoto marka ilaalinta shariicada islaamka hadaad qayb ka noqonayso dhiigaagu dhiig dameer buu noqonayaa waayahay malisdii kara marka adigoo bajaaj saarna lagu dhex dilay dhiiga dameer ma noqon karaa marka qofkaasi waxa ku tilmaantay dhiigaas inuu noqonayo dhiig dameer qofka la dilay muxuu yahay bajaajley konton iyo 5,000 mar hore dhaafeen baa maqle milyan ay ku dhow yihiin bajaajley oo walaalahayso kitaabka Ilaahay sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam wadankan lagu maamulo ma aragto adigu su'aasha adar ikaadi labo saxaafada Soomaaliya markii wariye laga xiray hadlaan hal wariye markii laga xiro ururiyada ay la baxeen noo soo saxaafada Soomaaliya oo wili ka hadlayso amniga caasimadda Soomaaliya caasimadda Muqdisho anu Muqdisho aan taganahay amniga Muqdisho xil baa iga saaran waana shakhsiyadeedu waa ka shaqeeyaa waxaana kaga shaqeeyaa ummadu inay talada Ilaahay madax banaanaato Ilaahayna ila heshiis ummadan Allah rabbul alamin heshiis la ahayn aidis oo asalkiisu sharmuutinimo ka yimaada iyo dhiiga muslimka oo la qafiifsado iyo cirko nagala xanimo iyo dhulko abaari ka dhacdo kama dhamaanayso waxa rabaa waqti wixii runa inaan qaada karno